Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Teacher Mohamed. Welcome to Grand Online Academy. In our lesson for today, we have adjectives end in ed and ing. Today we'll be talking about the differences between the endings of ing and ed. And before we start the lesson, I'd like you to share this lesson with your friends and family on Facebook. Thank you very much. Dhamaan aad baan idiin salaamayaa ardayda qaaliga ah iyo bulshada Soomaaliyeed. Magacaygu waa Macallin Mohamed, waxaan ka mid ahay macallimiinta Grand Online Academy. Casharkeena maanta aynu qaadan doono waa cashar ku saabsan adjectives oo aynu garanayno inay yihiin sifooyinka. Haddaba waa nooc ka mid ah sifooyinka oo ku dhammaada ed iyo ing. Isticmaaladooda kala duwan baynu baran doonaa Ilaahay idamkiisa. Intaynan casharka guda gelin waxaan idinka codsanaynaa in casharkan aad sii share garaysaan oo la wadaagtaan bulshada ku xidhan Facebook, sidoo kalena casharka aad like garaysaan. Aad baa mahadsantiin. Codsiga kale wataa waxa weeyaan ardayda qaaliga si aan u ogaano wixii aad casharkan ka fahanteen iyo wixii aydan ka fahmin in comment section-ka aad inoogu soo qortaan tusaalayaal aad idinku leedihiin iyo jumlada idinku aad leedihiin insha Allah ta'ala. waxaan idinka soo jawaabi doonaa qaybta comment-ka. Okay, and now let's get to the board and start the lessons. Okay, like I said earlier, today we'll be taking a lesson which is about adjectives ending in ed and ing. What are the differences? Okay, it's a bit confusing, like I said earlier, and we'll basically look at them one-on-one, and I hope you'll understand them properly. Okay, when the adjective ends in ed, it basically describes how a person feels or how people feel. It's about emotions. It talks about emotions. Markuu adjective-ku ku dhamaado ed, waxaan rabaa inaad ogaato in ay tahay marka waxaan isticmaalinaa laga warramayo siduu qof dareemayo, xaaladdu qof dareemo. It's about how people feel. Emotions waa dareenka qofku dareemayo ayaa ed-da loo isticmaalaa. Bal tusaalayaasha aynu eegno. Tusaalaha koowaad, I was bored in the lesson. Kelmadda xagga nooga jirta waa bored. Okay, arday badan baa si khaldan ugu dhawaaqa waxay dhahdaan bored. Dhawaaqa saxda, the proper pronunciation is bored. I was bored in the lesson. Waxaan ku aajisay casharka. ed baa la socota. Marka we use ed or the ending of ed when we talk about emotions. waxaan isticmaalnaa markaynu ka hadlayno xaalad ama waxa weyn dareen qof. waxay sheegaysaa sida dareemayso. Adigu, how do you feeling? How did you feel? I was bored in the lesson. waan ku caajisay ama waxaan dareemay caajisnimo ama kaslaanimo casharka. I almost fell asleep. waxaaban u dhawaadayba inaan seexdo. I almost fell asleep. inaan seexdaan ku dhawaaday sababtoo ah casharkan ku caajisay. Marka bored oo ed ku dhamaatay waxaanu garanay ama in la isticmaalayo sida aad dareemayso markaad ka waramayso. How you feel when you want to describe your emotions. markaad cabirayso sida aad dareemayso ama xaaladaada ama dareenkaaga. Good. Tusaalaha labaad, he was very shocked. uu naxay. He was very shocked uu naxay when he heard the news. markii uu maqlay warka, war naxdin la dabcan loo soo sheegay. warka naxdinta la markuu maqlay uu naxay. How did he feel? Suu dareemay? He got shocked. uu naxay. He was very shocked. aad buu u naxay ama u argagaxay ama waxa weeyaan uu u naxay when he heard the news. markii uu maqlay warka. marka kelmadda waxaa loogu dhawaaqayaa shocked maaha. taasi waa wrong, laakiin waa shocked. He was very shocked. aad buu u naxay weeyaan. Good. marka waxaad halka ka dareemaysaa in ed la isticmaalayo markaad ka waramayso adigu xaaladaad ku sugan tahay iyo sida aad dareemayso. Okay, waa numberka saddexaad. Okay, she was very surprised to see her father after a long time. She was very surprised. waxa weeyaan aad bay ula yaabtay. marka aad bay u yaabtay waxay ku noqotay ama kaag la yaab bay ku noqotay to see in ay aragto her father aabaheed after a long time. waqti dheer kadib si kaliisa markay aabaheed ku aragtay aad bay markaa u yaabtay ama aad bay waxa weeyaan markaa ay ugu noqotay wax la yaab leh. marka waxaad dareemaysaa surprised waa xaaladda ay dareentay iyadu. She was surprised. waa maxay? way la yaabtay ama waxay ku noqotay cajaa'ib. marka surprised maxay ku dhamaatay ed, dhawaaqeedana waa surprised.
Okay, saddexda jumladood oo horeeya waxay ku wada dhamaadeen waa ed. waxaynu halka ka fahmaynaa in aynu ed isticmaalayno dabcan marka aynu ka waramayno xaalad aynu ku sugannahay ama sida aynu dareemayno. Okay, good. haddaba waa maxay ing? Basically, ing was the situation that causes you to feel that way. Okay? ing waxa la isticmaalayaa waa xaaladda kugu sababaysa in aad san dareento. It's what causes you to feel that situation. Okay? It's the waxa kugu sababaya xaaladda inaad dareento. For example, qofka maxaa ku sababay in uu caajis noqdo? The lesson. Because the lesson was boring. ing hadii la socoto waa wixii sababayay inuu qofku san dareemo. ed markii la socotana waa sida qofku uu dareemayo laftarkiisa weeyaan. Bal tusaalayaashan aan eegno. Let's have a look at the sentences that we have on the board. Okay, have you seen that film? qof su'aal weydiinaya. Have you seen that film? ma aragtay ama ma fiirsatay ama ma daawatay filmkaas ma daawatay. Okay, it was really frightening. wuxuu ahaa mid cabsi leh. Frightening waa cabsida. marka xagga frightening ing bay ku dhamaatay. muxuu ahaa filimkaasi? mid cabsi leh. marka waxaad halkaa ka garanaysaa ing markuu ku dhamaado adjective-ku waxaan isticmaalaynaa waa waxa situationka xaaladan waxa abuuraya weeyaan. Okay, filimkaasi muxuu abuuray? Frightening. It was really frightening. wuxuu ahaa mid cabsi leh. Good. Okay, sentence-ka ku xiga. I could listen to her for hours. waxaan dhegeysan karayay iyada saacadaan dhegeysan karayay. saacado ayaan dhegeysan karayay. She's so interesting. waxa weeyaan qof xiise leh weeyaan. She's so interesting. waa qof hadalkeeda xiise leeyahay weeyaan. Okay, I could listen to her for hours. She's so interesting. waxaan dhegeysan karayay saacado badan. Because waa qof xiise leh. marka interesting ing bay ku dhamaatay. waa maxay? What the thing that causes the emotion or the feeling. ing waxa la isticmaalaa waxa dareenka keenaya ama inaad xaaladda aad wax weeyaan ku jirto. xaaladda waxa abuuraya ama dareenka keenaya loo isticmaala ing buu ku dhamaadaa. waa adjective oo loo geeyo ing. And now we'll look at the last sentence of our lesson for today, which is about the endings of ing. bal kan u dambeeya isaguna ing ku dhamaanayaan eegno. I can't sleep. ma seexan karo ama ma awoodo inaan seexdo oon jiifsado. That noise is really annoying. waayo jabaqdaasi ama codkaasi noise is really annoying. waa mid cadho leh. marka laga yaabaa halkaa uu seexanayo meel ka dhow bay dad ku sheekaysanayaan ama buuq baa ka jira ama hadal baa ka jira. marka waa maxay hadalkaasi? waa annoying. waa mid cadho leh. Okay, marka waxa wax abuuraya waa maxay? waa the noise. marka dabcan markaad leedahay waxaas waa wax cadho leh ing baad ku daraysaa. waa annoying. wax farxad leh ing baad ku daraysaa. waa interesting. wax cabsi leh ing baad ku daraysaa. waa frightening. Okay, sidaad adigu dareemayso way ka duwan tahay. ed baa markaa lala isticmaalaya. sidoo kale bored waa caajisay. shocked naxay. surprised yaabay ama kaagay. Okay, kuwaas waa kuwa id-da waa sidaad adigu dareemayso. We use them when we talk about ourselves. how we feel. waxaan isticmaalnaa markii inagu ka hadlayna saan dareemayno innagaas ka hadlayna. ing ku dhamaadana waa what causes the emotions or the situation. waa waxa xaaladda keenaya. Frightening cabsi leh. Interesting waxa weeyaan xiise leh. Annoying cadho leh. saasay ku kala duwan yihiin. hadda waxaan filayaa inaad casharka si fiican u fahanteen. And this is the end of our lesson for today. Thank you very much for watching this lesson. And please do not forget to write your own sentences in the comment section below. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.